Bismillaahi Raxmaani Raxiim kusoo dhawaada qodobada wararka ugu doorkroon ee Toosnaaw Media. Maxay ka wada hadleen Cali Quudlaawo iyo Sheekh Shariif? Midowga musharaxiinta oo qoraal xasaasi ah u diray Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay. Siciidani oo shaaciyay arrimo qarsanaa oo uu si cad ugu sheegay farmaajo. Mareykanka oo shaaciyay in aan loo adeegsan karin xanuunka COVID-19 inuu ku xadgudbo xorriyadaha aasaasiga. qodobada ay qodobo dhowr ayaad ku maqli doontaan kusoo dhawaada faahfaahinta warka. madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle Cali Cabdulaahi Xuseen Guudlaawo ayaa hoogiisa ku booqday madaxweynihii hore ee dalka Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo sidoo kale ah gudoomiyaha midowga musharaxiinta. Ujeedka Cali Guudlaawo uu xalay ugu tagay Sheekh Shariif ayaa ahaa booqasho isugu jirta salaan iyo xog wareysi ku aadan xaaladda uu dalka marayo. Labada mas'uul ayaa sidoo kale ka wada hadlay xaaladda dalka iyo ismariwaa weli ka taagan hanaanka doorashada dalka ee sanadkan 2011. Sidoo kale waxay isla soo qaadeen rabshadihii dhawaan ka dhacay magaalada Muqdisho iyo dibadbaxii lagaga soo horjeeday xubnaha musharaxiinta mucaaradka. Wararka ayaa sidoo kale intaa ku sii daraya labada mas'uul ay ku ballameen kulamo kale oo looga arinsanayo xaaladda adag ee lagu jiro siiba marxaladda kala guurka ah. Madaxweynaha Hirshabelle ayaa horey ula kulmay madaxweynihii hore ee dalka Xasan Sheekh Maxamuud iyagoo ka wada hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka. Guudlaawo ayaa waxaa madaxweynihii labaad ee dowlad goboleedka ee la kulmay musharaxiinta ahaa kadib rabshadihii ka dhacay caasimadda dalka ee Muqdisho. Midowga musharaxiinta ayaa warqad ay u direen madaxweynaha Golaha Amniga Qaramada Midoobay Marwo Damo Barbara Woodward waxay ku bilaabeen in xaaladda Soomaaliya si dhow loogu soo farageliyo si loo hubiyo in degdeg loo qabto doorashooyinka baarlamaanka ee madaxweynaha. Musharaxiinta qoraalka dalka diray oo gaaraya 15 ayaa ku eedeeyay madaxweynaha muddo xileedkiisu dhammaaday iyo xulafadiisa maamulka inay diideen ka shaqeynta fududeynta doorashooyinka xor iyo xalaal ah. Waxay ka digeen haddii Golaha Amnigu uusan faragelin xaaladda dalka uu farmaajo sii wadi doono carqaladeynta dadaalada lagu doonayo geedi socodka doorashada oo dimuqraadiga ah. Waxay warqadooda ku sheegeen in xiisadda siyaasadeed ee hadda jirta oo khatar ku ah xasilloonida Soomaaliya ay ka dhalatay siyaasadda farmaajo ee lagu bartilmaameysanayo dowladaha xubinta ka ah federaalka iyo kuwa siyaasad ahaan kasoo horjeeda oo ay weeliso ficilkiisa ula kac ahaa ee sida joogtada ah dib loogu dhigo doorashooyinka si loo raadiyo muddo kororsi sharci darro ah ama awood lagu qabsado qaab military. Waxay codsadeen in farmaajo lagu qasbo inuu joojiyo dhammaan faragelinta lagu hayo howlaha doorashada iyo inuu ku wareejiyo golo ku meel gaar ah oo qaran oo ka kooban madaxweynayaasha dowlad goboleedyada iyo gudoomiyaasha aqalka hoose iyo golaha shacabka. Waxaa burburay kalsoonidii siyaasadeed ee Soomaaliya maxaa yeelay waxaa markhaati ka nahnay dadaal nidaam oo uu farmaajo ku doonayo inuu ku majaxaabiyo dimuqraadiyadda una adeegsado xoog military si uu sharci darro xafiiska ugu sii joogo ayaa lagu yiri qoraalka. Waxay sidoo kale sheegeen in February 18 ilaa 19 ciidamada dowladda federaalka oo ka amar qaadanaya farmaajo ay isku sii dayeen dilka dhowr musharax madaxweyne iyo hogaamiyaasha mucaaradka sida ay hadalka u dhigeen ayna rasaas ku fureen iyaga oo dibadbaxayaal kale si nabad ah isugu soo baxay magaalada Muqdisho si ay u dalbadaan doorasho degdeg ah ayna sidoo kale hoteelka Maa'ido ku weerareen 3 musharax. Ficiladan gardarada ah ma aha kaliya sharci darro iyo anshax xumo laakiin waxay horumarinayaan dhaqanka farmaajo ee caburinta xuquuqda dalka Soomaaliyeed ee ah inay hadlaan oo ay si xor ah isu soo baxaan. Arrintaa oo si aad ah u wiiqaysa rajada la qabo doorasho xor iyo xalaal ah ayaa lagu yiri qoraalka. Waxay sidoo kale ku eedeeyeen farmaajo inuu Muqdisho ku urursaday ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ee la filayay inay la dagaalamaan Al-Shabaab si ay weeraro cusub ugu qaadaan guryaha ay degan yihiin musharaxiinta u taagan xilka madaxweynenimo una laayaan musharaxiinta iyo hogaamiyaasha kale ee siyaasadda. Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Dani oo caawa shir jaraa'id ku qabtay magaalada Garowe ayaa ka hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka isagoo shaaca ka qaaday arrimo badan oo xasaasi ah oo uu farmaajo qorsheynayo. run cilmi baaris tahay waxaan rabaa waxyaabo badan oo xaqaa'iq oo qarsoonaan jira inaan ka warramo ay dhici karto dadka qaybtiisa inay ka warqabin dadka qaybtiisa inay dhibsadaan. dowladdan federaalka ah
ee hadda xilligeedii dhammaaday 2018 shirkii Baydhabo ay ku galeen waxa ay go'aansadeen in waan ka xumahay 2 dokumentina waa laga saxiixay madaxdii markaa joogtay mid uu yahay nidaamka doorashada dalka midna uu yahay resource sharingka midna uu yahay barnaamij socday oo la yiraahdo security architecture habka ciidanka Soomaaliya loo dhisay madaxweynaha Puntland waxa uu intaa ku daray in farmaajo ay dad ka soo jeeda hawiye ay kala shaqeynayaan sidii uu dalka xoog ugu maamuli lahaa ayna halis tahay inuu dalka ku rido dagaal sokeeye sidoo kale waxa uu sheegay inuu ku dacweeyay mas'uul kasta oo hayb la ah balse qaarkood uu kala kulmay eedeyn ah inuu kala saftay madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe sidoo kale shaaciyay farmaajo uu dhisay ciidan isaga u daacad ah sida Haramcad Gorgor oo aan marna dagaal la gelin Al-Shabaab balse uu isagu adeegsado ayna weerar ka fuliyaan Galmudug Gedo iyo Daljirka Dahsoon ee Muqdisho xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa sheegay inaan wadana loo ogolaanaynin inuu xanuunka COVID-19 u adeegsado inuu ku xadgudbo xuquuqda aadanaha iyo xorriyadaha asaasiga Blinken waxa uu hadalkan u jeediyay shir ku saabsan COVID-19 iyo talaalka uu yeeshay golaha ammaanka ee qaramada midoobay 18 bishan Febraayo Blinken ma magacaabin wadan gaar ah markii uu ka hadlayay soo jeedintii arrinkan waxaase uu ku baaqay in wadamada lagula xisaabtamayo waajibaadka saaran ilaalinta xuquuqda aadanaha dowladda Soomaaliya isla maanta uu hadalkaasi jeediyay waxay soo saartay amar ay ku joojinayso soo baxyada iyo in la isugu yimaado iyadoo sheegtay inay talaabadaasi u qaaday ka hortagga faafidda COVID-19 darteeda macada in hadalka Blinken uu ku socday Soomaaliya iyo in kale talaabada ay qaaday dowladda Soomaaliya ayaa timi 2 maalmood ka hor markii uu dhici lahaa banaanbaxyo ay ku baaqeen mucaaradka uu ku beegnaa 19 Febraayo kaasi oo gacan ka hadal ka dhashay iyadoo dhinaca kalena uu ugu eedeeyay inuu soo weeraray dhinaca kale xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken waxa uu sheegay inay muhiim tahay in caalamku uu si wadajir ah uga hortago kana guuleysto COVID-19 iyo cudurro kale oo faafa oo mustaqbalka yimaada Blinken waxa uu sheegay in Mareykanka ay 20kii sano ee la soo dhaafay ku bixiyeen lacag dhan $140 milyan gargaaridda caafimaadka dunida inta ayaynu ku soo gabagabaynaynaa qodobadii wararka maanta. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.